ay dowladda Puntland aysan wax ka saxiixan ogolaana labada qodob oo aan diidnay waxa weeye mid waxa weeye habka garsoorkan uu noqonayo oo garsoor madax bannaan sida aan rabno ku qatomo dastuurka iyo shuruucda anagu aan leenahay waxa meesha la keenay wax ka duwan oo aanan suuragal ahayn inay Puntland aqbasho kolla intii aan garashadeedii markaas ahay waxa kaloo ahaa qodob isna weheliyay habka maamulka dawladeed ee heer federaal iyo heer state loo qaybinayo oo isagoo dhanba u muuqday mid ka soo horjeeda dastuurka Puntland iyo dastuurka federaalka hadda aan haysano iyo doonista iyo aqliga federaaleynta ee dalkani uu diyaarku u ahaa waxa meesha ka soo baxday qorshe u eg in mar labaad dib loogu cinayo dalkan inuu central noqdo oo aan dadkan u cutumi karin aniguna waxaan goostay awoodeyda dastuuriga ma ahayn go'aanada noocaas kale inaan qaato inaan dib ula soo noqdo bulshadeeda maxaa hadda marka la gudboon waxaan insha Allah bari soo saari doonaa warqad ku aadan mowqifka dawladdan oo muddadii hadda aan joognay aan ka shaqeynayno oo sidee ula jaan qaadnaa marxaladda cusub waxaan ula jaan qaadeynaa annagoo ahayn dadkii midnimada Soomaaliya dhaliyay dadkii midnimada iyo dawladnimada Soomaaliyeed ka shaqeynayay dadka nidaamka federaalka iyo dawladnimada gundhiga u ahaa maxaan rabnaa marka bayskeenu annagoo ilaalinayna midnimada dadka Soomaaliyeed iyo dawladda federaalka qawaaniinteeda iyo shuruucdeeda dawladnimo dawladda Puntland waxay hadda kadib diyaar u tahay in ay kula shaqeyso dawladda federaalka waxa dastuurka iyo dasaatiirta labada dawladoodba ay qorayaan waxaan kaloo diyaar u nahay inaan wada xaajood ka galno waxyaabaha dhiman ee hortaminta leh waxa ugu muhiimsan oo halka ka soo baxay waxa ahayd in la rabay dastuurka in la dhameystiro iyadoo qadiyadii Soomaaliland aan meesha lagu soo qaadin oo ay ka dhigan tahay in gobolada Sool iyo Sanaag la doonayo in Soomaaliland iyadoo oo maqan gacanta loo geliyo oo sharci laga dhigo taasna Puntland ma aqbali karto qadiyada Soomaaliya waa qadiyada isku xilan waxa ugu horeeyana waxa weeye Puntland iyo Somaliland qadiyadooda horta meel in lagu furo dhulka ka maqan Puntland la soo celiyo dadka Puntland dhibaatada loo geysanayo wax ka niraahno xalka Soomaaliya sidoo imaanayana albaab isku mid laga galay albaab kala duwan aan laga gelin arrimahaas iyadoo faahfaahsan oo qoraal ah iyo qodobadeeda ay imaan doonaan laakiin waxaan rajaynaynaa wixii Puntland ay soo qabatay oo ay ka mid ahayd shirarkii isdaba joog ah ee dawladnimada Soomaaliya lagu dhisay shirkii federaaleynta ee 2004 doorkay ka qaadatay dib u soo celinta caasimadda inay dalkan ku shaqeyso wixii ay ku bixisay dastuurka ku meel gaarka in laga saaro waqtigii ay gelisay oo Garowe 1 iyo 2 iyo shirki gaalkacay ay gaarsiisay himilada ay raadinayso waxay ahayd inay dhalato dawlad federaal oo dadku wax wada leeyihiin waxna kala leeyihiin dadku ku kala qaboobo dadka aan la barakicin dhaqaalaha iyo horumarka ma aha in magaalooyinka caasimadaha xataa oo isteedada kaliya la geersiye qorshaheena waxa weeye inuu meel walba gaaro min cirif ilaa cirif dhulka Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan dhulka Puntland meel kasta ay dawladda Puntland aysan wax ka saxiixan ogolaana labada qodob oo aan diidnay waxa weeye mid waxa weeye habka garsoorkan uu noqonayo oo garsoor madax bannaan sida aan rabno ku qatomo dastuurka iyo shuruucda anagu aan leenahay waxa meesha la keenay wax ka duwan oo aanan suuragal ahayn inay Puntland aqbasho kolla intii aan garashadeedii markaas ahay waxa kaloo ahaa qodob isna weheliyay habka maamulka dawladeed ee heer federaal iyo heer state loo qaybinayo oo isagoo dhanba u muuqday mid ka soo horjeeda dastuurka Puntland iyo dastuurka federaalka hadda aan haysano iyo doonista iyo aqliga federaaleynta ee dalkani uu diyaarku u ahaa waxa meesha ka soo baxday qorshe u eg in mar labaad
dib loogu cinayo dalkan inuu central noqdo oo aan dadkan u cutumi karin aniguna waxaan goostay awoodayda dastuuriga ma ahayn go'aanada noocaas kale inaan qaato inaan dib ula soo noqdo bulshadayda maxaa hadda marka la gudboon waxaan insha Allah bari soo saari doonaa warqad ku aadan mowqifka dawladdan oo muddadii hadda aan joognay aan ka shaqeynayay oo ah sidee ula jaanqaadnaa marxaladda cusub waxaan ula jaanqaadeynaa annagoo ahayn dadkii midnimada Soomaaliya dhaliyay dadkii midnimada iyo dawladnimada Soomaaliyeed ka shaqeynayay dadka nidaamka federaalka iyo dawladnimada gundhiga u ahaa maxaan rabnaa marka bayskeenu annagoo ilaalinayna midnimada dadka Soomaaliyeed iyo dawladda federaalka ah qawaaniinteeda iyo shuruucdeeda dawladnimo dawladda Puntland waxay hadda kadib diyaar u tahay in ay kula shaqeyso dawladda federaalka waxa dastuurka iyo dasaatiirta labada dawladoodba ay qorayaan waxaan kaloo diyaar u nahay inaan wada xaajood ka galno waxyaabaha dhiman ee hortaminta leh waxa ugu muhiimsan oo halka ka soo baxay waxa ahayd in la rabay dastuurka in la dhameystiro iyadoo qadiyadii Soomaaliland aan meesha lagu soo qaadin oo ay ka dhigan tahay in gobolada Sool iyo Sanaag la doonayo in Soomaaliland iyadoo oo maqan gacanta loo geliyo oo sharci laga dhigo taasna Puntland ma aqbali karto qadiyada Soomaaliya waa qadiyada isku xilan waxa ugu horeeyana waxa weeye Puntland iyo Soomaaliland qadiyadooda horta meel in lagu furo dhulka ka maqan Puntland la soo celiyo dadka Puntland dhibaatada loo geysanayo wax ka niraahno xalka Soomaaliya sidoo imaanayana albaab isku mid laga galay albaab kala duwan aan laga galin arrimahaas iyadoo faahfaahsan oo qoraal ah iyo qodobadeeda ay imaan doonaan laakiin waxaan rajaynaynaa wixii Puntland ay soo qabatay oo ay ka mid ahayd shirarkii isdaba joogga ah ee dawladnimada Soomaaliya lagu dhisay shirkii federaaleynta ee 2004 doorkay ka qaadatay dib u soo celinta caasimadda inay dalkan ku shaqeyso wixii ay ku bixisay dastuurka ku meel gaarka ah in laga saaro waqtigii ay gelisay oo Garowe 1 iyo 2 iyo shirki gaalkacay ay gaarsiisay himilada ay raadinayso waxay ahayd inay dhalato dawlad federaal ah oo dadku wax wada leeyihiin waxna kala leeyihiin dadku ku kala qaboobo dadka aan la barakicin dhaqaalaha iyo horumarka ma aha in magaalooyinka caasimadaha xataa oo isteedada kaliya la geersiye qorshaheena waxa weeye inuu meel walba gaaro min cirif ilaa cirif dhulka Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan dhulka Puntland meel kasta